بسم الله السلام عليكم soo dhawaada mar kale koorsada HTML waa 12 bisha labaad 2022 maanta casharka qodobka ku saabsan waxay noqonaysaa waxaan joognay links waxaan ka sii joognay qaybta soo qaadanay oo page-kan hadda furmay waan qaadanay soo hadda waxaan ku xijinaynaa page-kan colorska iyo bookmark-kaas la qaadanaynaa maadaama aan wax sharxeeno oo sida yihiin aan tusaalihii aan practical-ka aan raacinayno so waqti badan ay cost garan kartaa laakiin haddana markasta aan ku dadaalaa sidii aan waqtiga minimize aan ugu sameyn lahaa aniga naftirkayga waan waqti badan iga qaadanaysaa laakiin haddana wadada in la maro ay tahay in la maro waa qasab okay marka insha Allah markasta waxa ku dadaashaan qof walba mark nafteeda iyo naftiina kula dardaarmaa in aynan akhrin kaliya ku ekaan adiga aad gacantaada ku sameeysid waxa miisaanka yani leh oo macnaha u yeelay waxay tahay inaad si ficili ah oo practically amali ah u sameeysid okay qodobkan waan qaadanay bilaashan okay kan ku xigo ahaa يعني لينكسكا saddex cashar ka koobna marka casharkan kii shalay aan qaadano waaye ama kii u dambeeyay soo kan nagstiga hadda qaadanayna heer qadka ay culusadino sababta internetkana u jooga fiirna u jooga okay hadda marka waxaan qaadanaynaa HTML links different colors midabada kala duwan okay HTML link is displayed in a different color waxa lagu soo muujiyaa midabo kala duwan HTML linkiga waxayna ku xiran tahay depending on whether it has been visited is unvisited or is active in linkigaas la booqday ama aan la booqanin ama uu active yahay qodobkan waan ka soo hadalnay naftirkiisa laakiin haddana isla wixii marmar qaab kale inta qaabka ka duwan ku imaanayaan marka si kasta wadada aan mareynaa HTML link colors by default sida oo standardka marka wax bilowga yihiin asalka wuxuu ku yimaadaa the link will appear like this in all browsers browseryada dhan qaabkan ku soo muujinaya marka uu yahay an unvisited link is underlined and blue link waa mid oo diilin hoose leh midabkiisuna blue yahay xal mar waan tusaaleeyay filaarinkaas bal haddii wax yar u laabano computer page-kan iska booqana aad tusiyo okay tusaale aan hadda fiir blue waa kuwan hadda fiir waan haddii aad mouse ku dhaweysid muxuu noqonaa underline so marka waa unvisited waa link wili ma la booqanin so link inuu yahay waxaad ku ogaanaysaa mouse-ka markuu hadda fiir falaar waa hadda meesha u dhaweey wuxuu noqonaa gacan yar isku bedelay okay taasna waanu ka soo hadalnay hadda laakiin waxa noqosay waxay tahay inuu midabka blue yahay underline uu leeyahay so waa kaasa marka hadda hadii aan ku dhufto oo aan page-ka galo kan kore why do we need a computer case-ka hadaan ku dhufto fiiriya okay aan ku dhufanaa okay meeshaan ku laabana marka hadda hoos isu dajiyay okay kii aan ku dhufto waa kana midabkiisu uu isbedel marka aad u fiirsato kuwan kaleento ku midab ma ahan so marka waxay cadeynaysaa in la click gareeyay ama visited from unvisited to visited oo isku bedel marka wuxuu ahaa marka hore mid aan la booqan laakiin hadda mid la booqday waay so marka la booqday marka visitor link is underlined and purple midabkiis marka purple oo noqonaa iyo underline uu ahaana oo hadda waa kan underline hadda u dhaweey uu yahay laakiin midabkiis waa u jeedaa waa kaas asaas isku bedel midabka noocaas okay an active is underlined and red markuu active yahayna waa mid oo xariiqda hoos uu leeyahay midabkiisuna red ayuu noqonaa you can change the link stage colors by using CSS midabada marka waxa lagu bedeli karaa iyadoo la adeegsanayo CSS tusaale markuu meeshaan leeyahay visitor link waa wuxuu noqonaa green with no underline ma lahaanayo visited link will be pink kan la booqdana midabkiisa pink uu noqonaa sidoo kale with no underline ma lahaanayo so an active link waxa laga dhigaa asigana yellow oo underlined ah so inta waxa si dheer marka mouse kala dul saarana wuxuu noqonaa ma aragtay underline uu noqonaa so marka tusaalahan fiirinayna okay
so marka inta hadda noola sheegay marka waa kana fiir hadda meeshan haddaan muuska u dhaweeyo gaduuday noqonaya underline uu noqonaa fiiri waa kaas ma aragtaa okay so intaas waa marka muhiimadda waxa lagu bedelayo marka waa kaas waxa waa underline gaduud so kana waa codekii habka loo sameeyay so marka meeshan aad ka fiirsan karaysaa waxaa la isticmaalay qodobka labaad oo ilan styling wuxuu ahaa si maaragtay CSS habka loo isticmaalay saddex qodob inline iyo internal iyo external so marka kan hadda marka waxa waaye internalka waaye external ma ahan inline ma ahan waxa waaye waa internalka waaye waxaana la isticmaalay head section ka la gelinay marka style waa kan process kaas la maray si fiican marka wixii hadda aan tiro ku soo aragnay practical keeda ah waaye so marka waa kaas kan hadda gaarka ah kan waa filler colorka farta waa red background midabkiisa waa transparent oo midabkaas cad waaye hoos background-ga okay underline waa leeyahay text decoration ka so marka waa kaas hadii loo dhaweeyo saas active u noqonaa okay horaan uga socono waxaa kaloo jira idan waxa la dhaho link buttons waa kana qaabkan waaye يعني واللينكي لكن قاب بطن أهلو سميه قاب كان أهلو سميه سو مركا تساليه سنة مركا واكنا سيغنا هدي أن بيج كتسالها أن تقنو أوكي هبكا لو سمينا يو بروسيس كلو مرايو أوكي وانا رقنا أوكي ميدب كلو دورن مركا حوا أكتيف باكراوند كالر ريد باكراوند كالر كم وايو ديناعيس ريد aan arkona so marka okay kan hadda h2 gan waa qoraalkaas meesha ku qoran waa link buttonka yahay dartuga paragraphka marka waxa ku yaalo waxa waa link styled as a button link loo qaabeeyay sida buttonka kale loo qaabeeyo Soomaali ahaan so code kan marka waa kan habkana loo qoray href okay adi waa maaragtay inuu link yahay cadeynaysa waa hrefna maaragtay linkigi ku xiriirinaysay so marka target planka meeshana lagu sii daray markii oo target planka lagu sii daro property-gan iyo value-gan maaragtay markii loo adeegsado oo meeshan lagu soo daro waxay muujinaysaa aan faa'iideynaysaa in page-ka uu page cusub furmay kan يعني مر waxaa jirta markaad linkiga click siisid page-kii ku furnaa isla page-kii uu page kale u wareego isu bedelayo laakiin waa by default laakiin hadda markii oo target maaragtay calaamadan hoose oo planka la isticmaalo waxay noqonaysaa in uu new page furmo kaasa new page furmo so kii hadda aan ku jirno kan waa kii hadda aan ku jirno kan oo aha kan oo aha marka new page furme so new page kaasoo target kana faa'iideynaayo so marka farta ku qoran maxaa marka this is a link fartaas dhaxda meesha ku qoran this is a link kani waa link daarno ku bedeli karnaa kani waa link sis ku dhaafar aan leedahay okay kani waa link oo kaasa just marka waxa muhiim ah inaad maaragtay aad editor-kaaga kaligaa waxaad ku sameeysid ku falfalaadid so ka socono marka ana waqtiga soo koobna xoog saar insha Allah okay page kalaan xiray oo ah kii aan isticmaalay maya kan loo ahaa uu dhamaada umaleyna marka sugaya okay colorkan ku dhex jirnay waxaan qaadanay hadda intaan mareynay kan waan tusaaleynay buttonkan qaadanay okay waa dhamaadaba qaybtaas item link tags marka eedan defines hyperlink waxay qeexaysaa hyperlink inuu meesha ku jiro albaabka okay ay qeexaysaa okay waxaan sameynaa waxay reposer ku dhufsan
اوكي meeshan kasidana cafwan kasiraga go'ay اوكي marka qaybtan hadda way noo dhamaatay qaybta kale aan ku xijinayna iyo wuxuu ku saabsan yahay hadda isla arkeena qaybtan kaleento waa way koobanta iyadana waa wax la yiraahdo bookmark ayaa la sameeynaa so HTML kan waxa loo adeegsan karaa in la sameeyo bookmark so si ay maaragtay kuwa wax akhrista ay ugu boodaan qayb gaar ah oo web page-ka kamid ah yani web page markuu sidaan yahay ama uu dheer yahay waxay rabaan inay meel inta click siiyaan ay toos meeshii hoose ugu boodi karaan create bookmark marka la sameynta bookmarkiga HTML lagu sameeyo bookmark wuxuu faa'iido u leeyahay marka web page-ka uu aad u dheer yahay in la sameeyo bookmark marka hore waxaad sameynaysaa bookmark kadibna waxaad ku daraysaa linkiga marka linkiga la click gareeyo page-ka wuxuu u hoobanaa u wareeganaa kor ama hoos hadba meesha bookmarkiga oo jiray yani meel waxba taxan sida buugaagta kale inta gaar ahaan loo isticmaalaa chapterkii aad rabtay iyo wax la mid ah marka meesha aad tagsiisid kor ama hoos jihadii uu markaas u jiray ayuu u roll gareysmaa u kula aadaa okay tusaale marka hore waxaa isticmaalaysaa id attribute si loo sameeyo bookmark okay qaabkan aad adeegsanaysaa header 2 id chapter wixii aad qeexaysaa chapter number okay waan arkaynaa practical aan arki doonaa kadib ku dar linkiga bookmarkiga linkiga ku daraysaa waxaad ku qoraysaa qoraalkan u bood chapter 4 tusaale ahaan from within the same page marka isla page-ka dhexdiisa okay try yourself yan riixayna meeshaan ka dhex arkeena marka okay marka hadda meeshaan joogna tusaale ahaan buuga inta yaalo chapter 1 chapter 2 3 ilaa iyo tusaale inta hadda okay 10 ma ii muuqdo tusaale waxaan rabaa inaan 10ka aan aado fiiriya ilaa 20 chapter waa 23 chapter waa buuga tusaale ahaan so intaan hadda joogaa waxaan rabaa hadda inaan aado 10 kale aan u boodo kaliya aan siina 10 oo aada marka waa kaas chapter 10 waxaan rabaa inaan aado tusaale ahaan 4ka waa riixa 4ku keena waa kaas so this chapter explains bla 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 so marka muhiimaddu waxay tahay sidii aad meesha aad joogtid aad uga tuugan lahayd aad uga boodi lahayd meesha aad rabtid so marka habka loo sameeyo marka hadaan fiirin hadda waa kana paragraph badiga lagu dhex sameeyo waan arkaynaa so badiga markasta waxaa la geliyay wixii la rabo inay inta ka soo muuqato intaas waan isla ogeyn so okay href c4 chapter 4 la soo gaabiyo waaye jump to chapter 4 u bood okay hadda meeshaan haddii aan xarabna ka dhigi karnaa 20 ka dhigi karnaa kii la rabo so kan kale intaan hadda 2 chapter meeshaan noogu yaalaan kor oo ah 4 iyo 10 so marka linkigii waay kan id-gan hoos u jira hadda tusaale ahaan fiiri chapter 1 saan isaga qoray chapter 1 la ku qoran qoraalka yar oo hoostiisa ku qoran oo paragraph-ka ahna waa kana this chapter explains bla 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 okay chapter 2 sidoo kale inta kan waxba misduwan 3 sidoo 4 laakiin marka la imaado maxaan arkoonaa id loo sameeyay waa meesha hadda la dhahay marka hore id u sameey kadib oo ku link gareynaysaa so marka hadda meeshan 2 fiiri id c4 waa chapter 4 ku waa dhac chapter 4 ku qortay okay يعني waa process kan intaan aan isticmaal adigi kadibna ma aragtay kor waad ku link gareynaysaa si uu meesha la rabo ugu boodo haddaan hoos u sii degano 10kan haddaan tagno waa la mid 10ka haddaan tagno waa kaasa waa la mid okay qaybta tobanaad marka haddaan rabno inaan kuwa kale inta aan usii gudubno tusaale ahaan waxaan ka dhigaynaa waxaan aadaynaa tusaale ahaan 23 kan ugu dambeeya aan kor soo saarayna naftirkiisa kan ugu dambeeya ayaan kor soo saarayna okay 23 maahan kan waa kanan marka kor soo saarayna so marka nafsul qaacidadii la hadda aan isticmaalayna oo
oo maaragtay oo loo isticmaalayo taas. So marka waxaan suubinaynaa 23 kan aan tagana ugu dambeeyo. Okay, open tag aad ku dhex samaynaysaa. Okay, open tag markaad ku dhex samaysid waxaan aadaynaa meeshaan hadda waxaan ku bedelaynaa 10 ka ah 23 aan ku bedelaynaa. Okay, kordheer haddana ku soo laabo, kor ku soo laabo intaan hadda marka kan haddana samaynaynaa paragraph kan ka soo koobi hoos soo deji qoraalka waqti uga qaadana koobiga ay fududaanaa. So marka waxaan ka bedelaa oo kaliya meeshaan hadda waxaan ka dhigaa 23 intan marka waxaan leeyahay 23. Okay, waxaa kaloo ii dhiman hal arrin ii dhiman. Okay, 23 halkana meesha ka saaraa. Okay, run aan leeyahay waxaan rabaa inuu inta kusoo darsamo 23. Kaas uu kusoo darsoomay. Marka hadda maxaan sameynaa anoo hadda kor joogo ayaan hal mar hadda inta riixa wuxuu geenaa kan ugu dambeeyo hoos uu soo degaa. Waa kaas riixa ka 23 uu yimid kii ugu dambeeyo ugu hooseeyay. Marka bookmarkiga waxa uu qabanayo ama hawsha uu faa'iideynayo waa intaas. waxaan uu aad ugu fiican yahay marka buugaagta la isticmaalayo ama page-ka uu dheer yahay iyo wixii lamid ah. Okay, waad ku dari kartaa linkiga bookmarkiga page kale ku jiro another page. So marka si kooban marka waa kana qaacidada la isticmaalsan la marka tan la maraa qaacidadan href okay demo.html jump to chapter numberka chapterka raacinaysaa. Okay, gabagabadii marka chapter summary waxa waa use id attribute ku waxaad u isticmaalaysaa id-ga iyo calaamadda waxa la mid ah kadib value-ga raacinaysaa. So value-giisa hadda wuxuu ahaa waan arkaynay haddaan meesha aan tagno. Okay, value waa kana C23 chapter 23 aan kasoo gaarnay marka id-ga iyo C23 value-giisa raacinaysaa. kadibna marka maxaa sameynaysaa si oo loo qeexo bookmarkiga page-ka. يعني waa tilmaan waa meesha uu yaalo ayaa tilmaamaysaa. href attribute-na iyo value-giisana asagana waxa wuxuu link gareynaa bookmarkiga. kan uu ku tilmaamaa kan uu ku geynaa nuxurka intaas midna uu ku tilmaamaa halkaas waxa ka jira uu leeyahay wixii la rabay kanna meesha uu ku geynaa linkiga. So marka href-ka iyo value-giisa marka muxuu noqonaa tusaale ahaan fiiri waa kana markaan kor aan tagno href-ki. Okay, href value marka waa kana asigana 23 wixii markaas uu ahaa href plus value lagu daray. So linkigu geena kan ku xiriirna mid uu ku tilmaamay midna uu ku geeyay in a short. So marka meesha waxaan ka hooseeyo exercise inaad laylin ku sameysid ama tamriin wayna badan yihiin marka inaad ku dhufatid oo aad tijaabisid oo aad gadgadisid waqti aad gelisid dantaada ku jirto ee barashadaada. aadan idin salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.